بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاسب ترى فيكتوريا سيبرا خيا شمال باتشوكتين تشيلك سبحات وحبان ربعينا نلو ذاقو وحان ربعينا نلو ذاقو إناد أغاتين إن قاقان كليبيديس فيديو ذا يوتيوب كتشرو ميل بكتشرو it's not performing وحان perform قرينا يوم فيلم أمتلي يوم معه قاقان is not producer مثل produce قرينا يوم فيلم يوح شركة أهم شركة حريري أهم روايد أسيد آجكس يو ما كان حد بنادر يوحن يوح البودي بورفولي كان لقى هذا لا من ما قرني ضد بدن الصوغل. I'm not a producer. I am not theater. Provide me. I'm not star. وحنا هاي عبد الرحمن محمد أحمد. My personality. نانيستي نونا قفاجة. فيسبوك نونا أحمد. قاقام فايسنتيري لاتوفوتشو بيجكا. مركا anigu runtii waxaan ahay kacdoon oo dhalinyaradan la hadla hadalkan wado wuxuu u badan yahay wacyigelin iyo political assignment inaan siyaasiyiinta ka hadlo iyo jahalka inaan la dagaalamo khabyaaladda ka hadlo qabiilada caayo different point baan ka hadlaa haddaad si fiican ii dhegaysanaysid waxaan ka hadlayaa taariikhda soomaaliyeed حضارة الصومالية دولك الصومالية دجاجنا قبلنا ميرولبو واي تار جنريشن تدويل واتنجيل واي مانتا ما قرنا يعني صوماليا سائل وحما أغنيان دنيا تاريخكم ورقة الصومالي ذو كله تيفيه ذله وحول بله هدي ولادي وحول بيهين نلش معلومات كأي نلش مانتا كمشي كيان وذا ددو بوينت ضعيف بهلن dadku markay maskiin yihiin ilaahay bay qabsadaan point ka ضعيف ka lacag bay ka sameeyeen oo hoteelay leeyihiin oo waxay leeyihiin oo daarada dheer Nairobi South Africa business kulli Sheekh Muqbil iyo qolo walba dheh marka diintii waxay noqotay baayac in la iibsado wadaadka dhageysanaya 400 pound la siiyo telefishinada ka hadlo all that point كما أي هدلان دبتا يدنت دلك أي خرنمرة كما هدلان سياسيين توحي كهدلان سياسة بين اللي إنسان سياسة صنقلنا بروكسلان كلمة كلمة ميربان كلمة وحيد المامية وحيد دتك فهمسينيا إن العقل الصهر إن العقل السوق هذا إن كان يو استراتيجيك بوليتيك وحلو هدلايما شركة أمانك wuxuu ka hadlayay in Soomaaliya guuleysatay in jiritaankeeda jirto qeyr wuxuu ka hadlayay wuxuu laakiin aad ugu nafsaday in 100 milyan la siinayo euro ah 120 milyan oo dollar dhigmato iyo kan all is material ma uusan u tagin strategic project uu ka hadlayo ka kalumaysiga uu ka hadlayo imprenditorial waaye shirkado waaweyn waaye iskaashtooyin la dhiso waaye uma u baahno inuu yiraahdo kalumaysigana laga caawiyo dowladda canshuur ay marka siyaasiyiinteenu creative ma siyaasiyiinteenu waxay ka hadlayaan taxada European la shirnay 100 milyan oo nasiinaya waxay kaloo ka hadlayaan IMF ta lacag nasiinas waxay ka hadlayaan doon dad shaqaysanaya anigu point-kayga different anigu information aan dadka siiyaa wax ka jiro shabeellaha hoose wax ka jiro baraawe dhibaatada jirto sharif sakiin wuxuu dadka ku hayo gidiyan ka hadlaa farmaajo wuxuu damacsan yahay waxyaalo badan aan ka hadlaa different point aan ka hadlaa marka I'm very happy in I with you you are very big fan of you big fan banku hay wa kala videoyasha soo produce gareys ma soo produce gareey anigu waxaan ay qaqaan faysantiir la toofooch qaqaan waa qaqaanyasha waa jabhad waxa weeye dhalinyaro on Facebook raba inaan ku dagaal galiyo action qaadaan oo kacdoon sameeyaan wax sameeyaan oo xaq ka hadlaan oo welina soo dhaqso ma dhaqaaqin laakiin waqti aan loo baahan I have a speech isbedel doon waxaan wadaa challenge change dominator sunshine waxaan ka hadlay wax walba qolo walba wax soo dhigto waan u jawaabaa marmar baan crude la aan caaytama taani waxa weeye waa loo baahan yahay marka waxa weeyaan
we are qaaqaanyaasha G3 waxaanu nahay dhalinyaro G3 oo kacdoon wato aniga waa weynahay aabbaanahay awoowaanahay laakiin dhalinyarada ayaan kacdoonkan u wada maantu waxaa igu soo kordhay oo aan rabo horta inaan hubiyo media ku arkay meel ku arkay Axmed Madoobe oo Ethiopia tagay waan weydiiyay run bay noqotay in qalbi dhagax la soo deenayo oo qalbi dhagax arko laakiin it's very good point weeyaan wuxuu qabtay waa ku mahadsan yahay qalbi dhagaxna de waa in la soo deeyay dawladda waliba magdhow siisa iyada dambiga geysatay oo anaga xabashi timaado waxay xirtay ma arag dawladdu qalbi dhagax haduu yimaado waa inay magdhow siisa waxa la yiraahdaa Nairobi degaya ama Kismaayo degaya waa soo dhaweeyay arrinka Axmed Madoobe arrin wanaagsan buu qabtay laakiin political interest jiro waxba ay xabashida ka doonaysaasna oo isbedel wax saac uma dhacaan laakiin ku mahadsan yahay waxaan kaloo rabaa inaan halkan ka soo hadlo oo taabto 18 May waa Independence Days waa xafladii xorriyadda la soo noqday 18 May lama bedeli karo haddii Ramadan xitaa ku soo aado ani taasaan qabaa maxaa dhacay dheh maaha masaaj maaha taariikhda waa in la xusaa iyadoo la sooman yahay ciidamada gaardin karaan mari karaan xafladna habeenkii iyadoo la afuraa la dhigi karaa Yurub haddaan joogno 9-10 wixii ka dambeeya waa la afuraya waa la dhigi karaa laakiin ma aha in laga dhigto wax sahlan oo 18 May la bedelo 15 May laga dhigo that's wrong aad bay qalad tahay way ku qaldan tahay xukuumadda Somaliland waxaan kaloo la ii sheegay 12 May in Frankfurt ka dhacayso iyadana qalada u arkaa xafladda waxaa kaloo jira dad 15 ka dhiganayo Somaliland iyo meelo kala badan iyadana qaladan u arkaa maalinta xuska 18 May waa 18 May hala soomanaado yaa la soomanaan waana xafladda dhacdaa taariikhdeedu ku dhacdaa because waa maalin taariikha oo galayso taariikhda ummadda maaha in la bedelo 15 laga dhigo maanta 15 la feestay ama 12 la feestay ama kala feestay 18 waa in la feestay haddii Ramadaan tahay maana dhulku gadoomo taasan qaba aniga waxaan kaloo halka rabaa inaan ku darsado waxaan ku jirnaa marxalad aad iyo aad xun waqooyi waxa laga sheegayaa busaarad waxa laga sheegayaa sicir barar Soomaaliyana waxa laga sheegayaa dadka waxay cunaan ma haystaan iyagoon abaar ku dhicin roobab da'i dadkii dhaqaale ay wax ku cunaan ma haystaan $5 maalintii ma helaan wax ku cunaan barakacayaasha gobolka Banaadir ayaa gudoomiyaha iyo Itixaad Al-Awrobi UNHCR iyo qaxootiga ku dejinaya iyo laga fikirayaa barakacayaasha wax loogu qaban lahaa iyadana wax laga qabanayo male dad baa ku shaqeysta dad bay u xiran yihiin xerooyinkay ku jiraan oo lacag ku qaad Soomaaliya iyadoo ka bixin samafal NGO ka bixin ciidamada ammaanka Afrika laga bixin Soomaaliya ma dhadhow wali ma dhadhow saan kuma hagaagayso dadka maanta joogo dad wax hagaajinaya uma eko dad shaqaysanaya weeyeen marka meel baad joogtiin waan islaamiya ogaada abaqaqaan maaha producer oo video ma soo produce gareeyo madaxiga kama keeno iskama sheego qaqaan speechkiisu waa kacdoon waxaan far ku fiiqaa nal ku daaraa ku nuuriyaa qofka dhibaatada wado political analysis yahay nin wax bartay waan ahay consopable ahay me producer consopable waxaan ahay nin wax og kana hadlo waxaad og tihiin ani consopable ahay adinkana consopable ahay gedigeenu Soomaaliya nahay gobol walba iyo wax walba meesha ka jira waan ognahay gobol kala dhaamo ma leh gobol wali wax qabtay ma leh aniga Somaliland aad baan ula hadlay waxaa yiri shaqo abuura waxaa yiri iskaashtooyin sameeya waxaa yiri dalka wixii la qaban lahaa xataa waa tilmaamay laakiin waxay ka dhigan tahay dadka Soomaalida lala hadlayo waa dhagax dixda markii biyaha lagu soo maqooyay Cabdilaahi Suudaanayo waa dhagaxdan dixda la socday sulubka Soomaalida dhahdo maqooyay Soomaali wax in loo sheego uma baahno wax walba way ogtahay bad lack of education haysto waxa haysto jahli siyaasadda waxa haysto qabiil jahl ah waxa haysto diinta islaamka oo si la rabo iyo wahabiye meel walba la galo siyaasad noqoto iyadana jaahil ah diinta garanay wadaadada waxyaalo badan baa Soomaaliya iskugu tagay marka waxaan leenahay bil Shacbaan Ilaahay u baryeena inuu Ilaahay Soomaaliya agaajiyo
dadka Yurub ku nool ee dhalinyarada iyo waxaana iyagana waxa weeye way lunsan yihiin dhalinyaradii chance haystaan wax ma bartaan dhalinyaradii wadooyinkii taagan yihiin dhalinyaradii waa dhalinyarada ku fikiraysa 15 May xafladaan dhiganayna kan iyo soo sawirayaan so they are not capable dad jira ma waxa ku soo haray familada joogo dumarka iyo ragga Yurub joogo is 1% inta run isku qabtay isla nool kulligood waxay qoran yihiin inay isqabin ay kala degan yihiin ubadkii dhalinyarada ay dhaleen iyo yaryarkii saqiirkii kulligood waa xaaraan oo magac hooyadooda ay wataan marka waxa jiro big gap of jahli iyo waxa jiro hunguri dadkii hunguri baa qaaday waxay u haystaan kuma kalsoon nafsadooda halkee lacag ka hesha ninkaaga iska fur ninkii naagta kala degaa 200 oo Iran ay siinaya zaida ilmaha kinder bes la qalb u siinaya marka waa qash rasuulkana wuxuu yiri min qasha laysa minni waxa Yurub jooga dhan ay xajka aaday kulligood iyagii naagtooda isma qabaan marka waa dambi waa inay dhanka dawladda iska guursadaan waa in guurka la ilaaliyaa waa jiritaanka Soomaali waa ilma xalaalan doonayna ilma xalaal hadii la helin dhibaatadeeda leedahay marka waxaan leeyahay waxa Yurub joogo London joogo Jarmalka joogo France joogo Melbourne joogo hadda waan arkaa kulli waa dad kala degan iyagoo ninkooda xaaraan iskugu dhuumanay marka hasta la Victoria sempre khayaash ummadda Soomaaliyeed Ilaahay soo hadiyo mac salaam